السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناسان داود المركز وجوتان كان هو تي في مدح فنان برشة تي في حرمتي سما مقالة هرقيسا تبدروح نسوق أن يحلي كريم سوق بنتي نور دالك بوليسا يدبتي سبها بين كان عوا وحي نجا سوق عليه وليكن سوق بين الاستوديو كوبا برشة تي في مقالة هرقيسا تبدر القضاء عاور كي ودور كورونا قدامون دوتانا وحاكم لا shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa guud ahaanba shaqaalaha dawladda ugu baaqay inay fasax yihiin maalinta bariya munaasabada Ciid al-Fitriga awgeed isla markaana hambalyo u diray guud ahaanba shacbi weynaha reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan hay'adda الفردوس الخيرية وكهول قشة سومالان أي دقل عقد قدوسي دادك كودقان تولدا عيدروش ديقان كفرويني لها أماكي قرمد مدويد يجمعات عربتا أي إرقي عسو مقعابي كاسو يلندون داركاسي سوريا waxaa maxkamadda sare dalkaasi ruushka la soo taagay 3 gabdhood oo fanaaniin ah oo ku jira koox fanaaniin oo ka jira dalkaasi ruushka taawada soo qaar kamid ah qodobada caawarka ugu doorkroon imkii haatan warkii oo faahfaahsan sirka shaqada wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa ku dhawaaqay guud ahaan bayna shaqaalaha dawladda fasaxayeen maalinta bariya munaasabada Ciid al-Fitriga awgeed iyagoo dhinaca kalena hambalyo u diray guud ahaanba meel kastoo ka joogaan shacbi weynaha reer Soomaaliland mafayda warkaasina waxay noo hayaa wariye Suleymaan Cabdi Cali Kalshaale iyadoo oo lagu jiray maalintii ugu dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana loo diyaar garoobiyo munaasabada ciida bisha barakeysan ee Ramadaan ee Ciid al-Fitriga ayaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliland waxa ay hambalyo iyo bogaadin u direen guud ahaanba shacbi weynaha reer Soomaaliland iyo shaqaalaha dawladda iyagoo ku hambaliyay munaasabada Ciid al-Fitriga ilaahayna uga baryay inay sanadkan sanadkiisa ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Nuux Sheekh Muuse Ducaale oo maanta xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa guud ahaanba hambalyo u diray shaqaalaha dawladda waxaanu ilaahay uga baryay inay sanadkan sanadkiisa ku gaaraan bashbash barwaaqo iyo horumar isagoo oo dhinaca kalena gudoomiyuhu shaqaalaha dawladda ku wargeliyay inay maalmaha ciida fasax yihiin waxaana hadaladiisii kamid ahaa halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer Soomaaliland oo dhan madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan shaqaalaha dawladda Soomaaliland ee xafiiskan hoos yimaada waxaan leeyahay hambalyo Ramadaan kariim ilaahay barakadeeda hayna siiyo maanta aynu ugu dambayso aynu sidoo soonnay barina waa ciid ilaahay hayna soo mariyo iyadoo kale oo hayna gaarsiiyo sanadka sanadkiisa innakoo caafimaad qabna oo barwaaqo ku jira oo nabadgelyo ku jira fasaxeenuna kulley anigu markay diintii noqoto iyo ciidaha xajka iyo tan ciid al-Fitriga labada midna runtii annagu ma xadidno fasaxa oo shaqaalaha ma xadidno waa caam dalkoo dhan marka wasiirka diinta iyo awqaafta ayaa sheegi doona inta cisho ay tahay inkastoo aan filayo inay tahay 2 cisho oo salaasada la soo galiya shaqada oo fasax ahaanayno axadda iyo isniinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair
geesta kalena wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamuud Axmed Barre Garaad oo isaguna warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa hambaliyo taasi la mid ah u diray guud ahaanba shacbiga reer Somaliland shaqaalaha weynaha iyo qaybaha bulshada waxaanu Ilaahay uga baryay inay sanadkiisa ku gaadhaan nabad horumar iyo waliba rayn isla mar ahaantaana Ilaahay uga rajaynayo in sanadkiisa Somaliland ay ku gaadho iyadoo ah dal ictiraaf ka helay beesha caalamka rajaynayana in himilada ummadu ay hirgasho inta lagu jiro sanadkan wasiirka ayaa sidoo kale iclaamiyay in shaqaalaha kala duwan ee reer Somaliland ay fasaxeen labada maalmood ee ciida isla markaana ay xaq u leeyihiin sida uu jeedinayo xeerka shaqaalaha ee wasaaraddaasi waxaana hadaladiisi kamid ahaa bulshooyinka shaqaalooyinaha Somaliland alle Ramadan Kareem anigoo ah Maxamuud Axmed Barre wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan baliya u diraya dhammaan shaqaalooyinaha kuwa hay'adaha ka shaqeeya kuwa xukuumadda guddigood waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan u rajaynayaa sanadkiisa barwaaqo inay ku waaraan waxaan baliya u diraya shaqaalooyinaha Somaliland xaasaskooda iyo carruurtooda waxaan leeyahay ciid wanaagsan inta waxa ay dheer oo leeyahay waa fasax maalmaha ciida waa laba maalmood waa beritoole oo ahada iyo isniinta laba maalmood fasax weyne shaqaalaha kuwa rayidka ah ee loo yaqaan shaqaalaha rayidka ee hay'adaha u shaqeeya hoteelada kuwa ka shaqeeya kuwa meheradaha ka shaqeeya guddigood waa fasax waa maalin fasax xeerka shaqada ayaa siinaya fasax gaar ciid wanaagsan waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu sanadkiisa barwaaqo iyo caafimaad iyo nolol inta ka fiican inuu ku gaadho Ilaahay baan ka rajaynayaa maalin wanaagsan dhinaca kale diyaargarowgii ugu dambeeyay ee munaasabadda ciida loogu diyaargaroobaya ayaa suuqyada magaalada Hargeysa si weyn looga dareemayay waxaana goobaha lagu iibinayo agabka laga qayb qaadanayo munaasabadda ciida si weyn looga dareemayay maanta mashquul iyo dadka oo sidii hore aad uga soo batay halkani waa bartamaha suuqa bacadlaha waaheen oo ay ka socoto diyaargarowga ciida ee dhinaca wax kala iibsiga iyo ganacsiga iyadoo oo ay dadku halkaas ka iibsanayaan qaybaha kala duwan ee agabka munaasabadda ciida loogu talagalay sida dharka kabaha qalabka ay carruurtu ku ciyaarto iyo waxyaabaha la halmaala qaar kamid ah dadka iyagu halkaas wax ku ganacsanayay ee iibinayay dharka iyo agabka kale ee ciida ayaanu la kulanay waxna ka weydiinay bar sida ay suuqoodu yahay iyo waliba diyaargarowga maalinta ugu dambeysay ee ciida waxyaabaha uu kaga duwan yahay maalmihii hore waxaana hadaladoodii kamid ahaa yahay suuqna wanaagsan iyo sixir barun baan yeerahaya marka waxaan leenahay dadka ganacsatada in dadka deel la eego oo la saayiro oo kamid ah niyo anaga halkayga hore noo fiicnayd laakiin dawladdu intayna baabisay dhaqaale burbur badan inuu naga soo gaadhay waxa iga burburay dawladdu waxba noo qabanayn guddida wanaag farista iyo xumaan reebista Somaliland ayaa maanta la guddoonsiiyay deeq iskugu jirta kitaabada Quraanka Kariimka iyo dhar taasoo loogu talagalay in la siiyo dadka danyarta ee aan iyagu awoodin in ay iibsadaan deeqdan ayaa waxaa dalka Sacuudiga ka soo diray Sheekh Ismaaciil Cabdi Bacad oo ka soo degan magaalada Jidda deeqdan u soo wakiishay Sheekh Aadan Maxamuud Xiire Aadan Siiro daba ugu horeyn ayaa deeqdaasi la guddoonsiiyay guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ka hadlay gudoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan reebista Somaliland Sheekh Maxamed Aadan Xiire oo horeyn waxa uu sheegay in guddida wanaag farista iyo xumaan reebistu ay sida ugu dhaqso badan u gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay in la gaarsiiyo deeqdani isagoo una mahad celiyay sheekh isagu soo diray guddida wanaag farista iyo xumaan reebista Somaliland waxaana hadaladiisii kamid ahaa inta ka imaado aad iyo aad baan maaragtay Sheekh Aadan oo maanta kutubta yani gartay iyo maaragtay hadiyada badan oo loo qaybinayo ummadda Somaliland yani jihada ugu haboon ee qaybin kartay xilka ka soo bixi karta inay tahay wanaag farista ayaa maaragtay uu nagu soo wareejiyay annaguna insha Allah ta'ala ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu nagu asturo oo meelihii ay ku haboonaayeen
in maaragtay qaybaha wanaag farista ee gobolada iyo kuwa maaragtay magaalada gudaheeda ka shaqeeyaaba in meelihii ay ku habbaanaayeen baahidu ay taallay inay alaabtaa gaarsiiyaan inuu ilaahay nagu asto ayaanu aad iyo aad ayaanu maaragtay ruanta ayaanu ka rajaynaynaa waananu ka gudoomaynaa. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay sheekh aadan maxamuud xiirey aadan siiro ayaa waxa uu xusay in guddida wanaag farista iyo xumaan reebista loogu soo igmaday inay gaarsiiyaan deeqdani meelihii loo qoondiyey isagoo sheegay in guddida wanaag farista iyo xumaan reebistu dhammaanba ay ka shaqeeyaan guud ahaanba gobolada Somaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa maanta aynu iskugu nimid waxa weeye inaanu ku wareejino hay'atul amri bil ma'ruf annagoo khayr iyo wanaag badan ku og 20,750 mushaf ayaanu ku wareejinaynaa xagga masaaxifta waa 20,750 mushaf ayaanu ku wareejinaynaa waxa kaloo aanu ku wareejinaynaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dhar dadka fuqarada ah loogu talagalay oo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iyaguna saraawishan jeaniska caruurta yar yar oo dhan ku filan iyaguna waa 6,360 surwaal. hay'atul firdaws al-khayriya oo ka howlgashay Somaliland ayaa deeq lacag gudoonsiyay dadka ku dhaqan tuulada Cadarosh ee deegaanka Faraweyne suufafaynta warkaasi noogu eegayo wariye Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin ilkaase. hay'adda firdaws al-khayriya oo ka howlgashay Jamhuuriyadda Somaliland ayaa deeq lacag ah oo ay ugu tala gashay sakaadul fidriga gaarsiisay dadka iyagu ku dhaqan tuulada Cadarosh ee deegaankaasi Faraweyne. deeqdan oo ay ugu tala gashay ardayda iyagu wax ka barta madrasadan ay hay'addu ka dhistay sanadkii hore tuulada Cadarosh. xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adaasi firdaws al-khayriya gudoomiyaha degmada Faraweyne iyo dadweynaha ku dhaqan tuuladaasi Cadarosh. ugu horeyn xafladan waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda firdaws al-khayriya Ismaan aw Maxamuud Ismaaciil waxaanu ugu horeyn u mahad celiyay sida fiican ay waalidiintu ubadkooda u keeneen madrasadan iyaga oo meelo badan oo kala durugsan ka yimid. gudoomiyaha hay'adda oo halkaasi ka hadlay ayaa hadaladiisii waxa ka mid ahaa sida tan caruurta kula dadaalayna waxa weeye waa mustaqbalkiini weeyaan mustaqbalkii wadanka weeyaan waayin hilaalu ahmar al-imarat al-arabiya abu dhabi marka waxa weeye hay'adaasi oo waqtigii la aasaasay ay dhaweyd 2010kii ayaa la aasaasay iyo sida ay durba ay horta mashaariicda ay fulisay ay u hirgashay oo hana qaaday iyadoo aanu ka rajeynayno in ay wax ka badan degmada insha Allah ay ka qaban doonaan. intii ay hadaba xafladani socotay ayaa waxa halkaasi lagu gudoonsiyay waalidiinta iyagu dhalay ubadka wax ka barta madrasadaasi ay hay'addu sanadkii hore ka hirgelisay. deegaanadaasi ayaa waxa lagu gudoonsiyay deeqdii ay hay'adaasi u siday. gabagabadiina waxa xafladaasi lagu soo afjiray gudoomiyaha hay'adda firdaws al-khayriya oo shahaado sharaf gudoonsiyay gudoomiyaha degmada Faraweyne sidii fiicnayd uu la shaqeeyay hay'adaasi intii ay mashruucyada ballaadhan ka waday deegaanadaasi. Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin bulshadi warkii oo daawada kala socotaan TV-ga madaxa banaan ee bulshada TV xaruntiisa magaalada Hargeysa habeenkan caawa wanaagay taasi warka xigan mar labaad hawada dib ugu kulmayno aniga iyo asxaabtii kale ee bulshada TV ee tabinta warka igala qayb qaadatayba waxaan ku dhaafinaa waqtigu hayno ahayd mid wanaagsan